munaasabadani oo ay mid lagu taageerayay qadiyadda madaxbannaanida Soomaaliland oo ay ka doodeen baarlamaanka Ingiriiska ayaa wax lagu qabtay u tiraysa magaalada Boorama waxaana ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan maamulka gobolka Awdal kani degmada Boorama oday dhaqameedka gobolada galbeedka Soomaaliland waxaana munaasabadaasi taas socotaalkaas laga soo jeediyay hadallo banaan mahadnaq oo lagu mahadnaqayay baarlamaanka UK gaar ahaan xildhibaankii soo diyaariyay dooda laga doodaya qoyska Soomaaliland waxaana hadaladaas laga soo jeediyay u dhaceen sida tan haween dhalinyaro saxaafad culimo uqaal muxuu salaadiin inaynu ku taageero Ingiriiska ka dhawaajiye ka fadhiistay aqoonsiga Soomaaliland marka ugu horeysa waxaan leeyahay Ingiriiska waynu taageeraynaa taageero buuxa inagoo Soomaaliland ayaynu u haynaa gobolka Awdal hadii la leeyahay waxay taageersan tahay Soomaaliya iyo meelaha uga daloola ma jirtaan leeyahay taasi aad baan dugtay maadsantiin waxa kale oo salaamaya Ingiriiska baarlamaanka Ingiriiska fadhigii ay ka yeesheen doodda ay ka yeesheen qadiyadda Soomaaliland meel fiican bay dhigeen meel fiicanna way gaarsiin waxaan leenahay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa aad baan u salaameynaa waxaan leenahay halkaas sii wada dhammaan annagu gobolka Awdal haddaan nahay haween iyo rag iyo xaafadtoona waxaanu raacsanahay in la nooqooslaan u taaganahay maanta waxaan ka sheegaynaa halkaa in la nooqooslo oo adduunyadu nooqostaan u taaganahay adduunkana waxaan ka codsanaynaa inay tallaabada mudanihii horgeeyay Mareykanka ujeedada Soomaaliland iyo waxa la rabo inay adduunyada in badan oo kale ku dayato way xaq mudatay Ingiriiska kalfadhiga ka yeeshay u fadhiistay arinta isweydiiyayna waan salaameynaa oo uu ku mahadsan yahay gooni isku taagimika isku ma hayno horaan gooni isku taagnay laakiin waxaan rabnaa waa aqoonsi isaguna waxa weeyay dawladaha kale inaga xigaabaan u malaynayaa waxa uu maanta inoogu dhaqdhaqaajiyay in layna ixtiraafo waxa weeyaan waa intuu inaga xigay oo dadkeen ka xorowna weeyay waxaan leenahay inta u dhaqdhaqaaqdayna ee baarlamaanka Ingiriiskana support baan leenahay support the Parliament of Britain support baan leenahay dhalinyarta gobolka Awdal waxa weeye waliba waxa ku hadlaya afka 30 jirka ilaa wixii ka yar waxa ku dhalanaa anagu calanka Soomaaliland waxa aragnaa calanka Soomaaliland waxa cunaa ceeshka Soomaaliland اعترافkeena insha Allah waan helaynaa hadii la hayraado ilaahay waa ixtiraafay dal Soomaaliyeed weeyaan nabadna waan ku haysanaa nabadgelyana waan ku haysanaa deegteedana waan cunaa misaarooyin baa ka qaadanaa marka waxa weeyaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh اعترافkeena ilaahay bayna ictiraafay maadaama calankeena laa ilaaha illa allah muxammad rasuulullaahi ku qoran tahay ciidda kale ayna ictiraafaysana ilaahay baan ka baryaynaa inuu ilaahay noo soo jeediyo kolka laga maarmaan bay u tahayna in ay Boorama ay noqoto wax walba oo tallaabo horumarin leh in ay kaga dhawaaqdo Boorame baarlamaanka Ingiriisku hadaanu nahay shacbiga reer Soomaaliland iyo mas'uuliyiinteedaba uu nooga duwan yahay dhammaan baarlamaanada kale ee adduunka waana baarlamaankii ugu horeeyay ee qadiyadda Soomaaliland ka keenay xogreey mooshin markaan wax yara dhaliilayno dhaliishu ma ahayn mar weel walba way taagan tahay maanta maalintii wax la dhaliilayna ma ahayn waa farxad weeyi dhaliishuna waxa weeyaan odayada caaqilada ee adeerada ee 300 ee kun la siiyo waar waxay u qalmaan 300 iyo 600 oo dollar ah loo biiriyun baan u soconaa waanan u biirinaynaa sanadka dambe hadii ilaahayna runtii waxaan aaminsanahay inay dhowdahay maalintii layna aqoonsan lahaa ee calankeenu iyo magaceenuba caalamka aynu ku biiri lahayn inay dhowdahay ayaanu aaminsanahay waxaan ku biirinayaa codkayga inaan mataqaana u hambalyeeyno baarlamaanka dalka Ingiriiska runtii oo Soomaaliland u soo jeestay iyo mataqaana guud ahaan dawladda Ingiriiskaba oo go'aan ku qaatay insha Allah taala inay dawladda Soomaaliland ictiraaf buuxda ay u raadiyaan oo adduunka kalena mataqaana uga raadiyaan waxaan rajaynaynaa insha Allah taala in dawladda Ingiriiska noqoto dawladdii ugu horeysay ee ictiraafta dawladda Soomaaliland insha Allah taala waa mahadsantihiin insha Allah waxaan rajaynaynaa inaynu inaguna hawsha bogaadino xildhibaanada baarlamaanka Ingiriiskuna ay qayb muhiim ah ka qaateen sidii ay Soomaaliland u noqon lahayd dal la aqoonsan yahay wax kasta oo loo dadaalana waa la gaaraa
waxaan rajaynaynaa inaynu gaadhno cid kasta oo xafladdan ka soo qayb qaadatay waxaan leeyahay way muuqataa qadiyaddii Soomaaliland halkay taagan tahay innaguna waxaynu qayb weyn ka ahayn aasaaskii qarankan waxa weeyaan cidda imika calanka soo qaadaysaana waa innaga haddii ilaahay dhaa waxaan rajaynaynaa inaynu isku taageersanno isku barbar taagno cid kasta oo qadiyadda Soomaaliland ka hadlaysana aynu qaybteenna Mustafa Calaale Ariel TV Boorama dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyey in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helayaa adeegga e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida taxalladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed